السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابته ميل ولي بايدون الدنيا كجوكتان فيدنما وناكسن مالينما وناكسن حلي وليبا يا وقت وليبا ويدين تايكونا سودوادا كريبتو صومالي تي في وانا سايبكين سيدكا وقضو بدورة عن جعلها إن مانتا عن نوغو فرقايو إيو أرماسي سيدا أي نقون دونان واسي مركلة إيو كريبتو صومالي تي في بقول سنة متكي جري وعشاء قبوح سمي قرمذوب أنبطن للنتوي إسبيرسو بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو بقول سنة متكي جري وعشاء قبوح سمي قرمذوب أنبطن للنتوي إسبيرسو بلنتينو واشقو بلنتينو qodobo dhowr ah ayaan jeclahay barnaamijkeenan Crypto Somali TV ka baxa inaan ku soo qaato oo ay ka mid ahaan doonto maxay tahay wareegtada bangiga dhexe ee Soomaaliya uu ka soo saaray in dhammaan la joojiyo sharciyada bankiyooyinka localka ama private-ka ee kambaniyada qaarka ah ay leeyihiin in ay joojiyaan in dadka ka shaqeysta suuqani forex-ka la yiraahdo ee cryptada loo ekeysiyay wareegtadan oo ahayd bishii 10aad horay u soo baxday oo aad moodo mar labaad in dib dawladda federaalka ay u soo cusboonaysiisay maxaa kalifi kara maxay tahay wixii horay ay dawladdu u soo saartay in markoodii horeba lagu kala tago oo dawladdu heshiisyo gaar ah iyadu dabada ka gasho haddase aad moodo in ay noqotay sheekadu mar kale ayaan soo rogal celinayna saameyn caynkii ah ay yeelan doonta maxay ku kala duwan yihiin lacagahan cryptocurrency-ga la yiraahdo suuqa forex-ku muxuu yahay marka laga tago in Crypto Somali TV aanu u naqaano in suuq xaraan ah isla markaana ay aad u halis badan tahay waxaan jeclahay qaybtaas in aynan ku falanqeyn oo aanu ku falanqeyno oo qora bal waxa wareegtadani ay bedeli karto suuqaas iyo waxa aad kala kulmi kartaan maxaa la isdhihi karayaa kala duwanaanshaha crypto iyo forex-na sidee bay kala yihiin taasi oo kala cadeyn doonta su'aalooyin aad u fara badan oo inta badan dadka isaga kala maldahan oo ay ku yara adag tahay soo saaridooda ama fahanka guud ee la dhihi karayo arrinkaasi way noqon karaysaa waana saaxiibkiin siidkoo idin dhahayo haddaad ku cusub tahay Crypto Somali TV like dheh oo subscribe saar kalana soco arrimaha kala duwan ee scabriska iyo tugada qalin furatada oo ay ka mid yihiin qolooyinka imika bangiga dhexe ee Soomaaliya uu u diidan yahay sharciyada bangiyeedyo in hay'adaha bangiyada localka ah ay siiyaan waana arki doonaa bal waxa aanu ka dhihi karayno arrintaasi balse sidaanu la socono 24 saac la soo dhaafay jawiga crypto muxuu ahaa maxaa isbedelay waa sidee xaalka ayaan jecelahay in inta muuqaalku live noo yahay aan idinkula wadaago aragtidiina qaybta live-ka waad igala soo wadaagi kartaan inta muuqaalku oo inoo socdo oo su'aalaha Crypto Somali TV-na waad soo weydiin karaysaan waxaana jecelahay bal inaanu eegno coinanka la isdhihi karaa 24 saac cirka ay isku soo shareereen ama waa ay soo yara qaaliyoobeen oo aanu arki karayno aanu ka fiirino suuqa inkastoo aad moodo in uu jiro waxoogaa in suuqu uu hoos u soo yara dhacay dhanka kalese waxa iyana taas dheer oo aanu ognahay bal kala duwanaashahani technology-adani cryptocurrency-ga la yiraahdo iyo blockchain-ku iyo suuqani forex ee inta badan dadka lagu isgaam gareeyo kala duwanaashahooda dad fara badan ayaa waxaad moodaa 80% ama 90 badhe wareegtadu waxaad moodaa bangiga dhexe ee Soomaaliya imika uu soo saaray inay noqon doonto mid aan hirgelin balse yaysan noqon mid aan hirgelin oo imika wasaaradii ganacsiga ayaa ku dhagan iyo qolooyinkaas oo taagan waxaan uu bangigu sheegayo anagu ma naqaano ayaga ayaana xaq u lahaa in gartaas marka hore ay qaadaan oo haddii la fahmi kari waayo ay noqoto in bangiga dhexe uu go-aan ka gaaro iyo bankiyada private-ka iyo wasaaradaha ganacsigu ay iyagu marka hore bal iska kaashadaan oo ay ka keenaan leebelo iyo nidaam sharciyeedyo kala duwan kadibna
bangiga dhexe uu noqdo raasumaalka ugu dambeeya lagu kala guro, balse isaga bishii 10aadba wareegta ayuu soo saaray isla midaan ahayd oo go-aanka warqadan ku lifaaqan aanu arkayno iminka aanu idinla wadaagayaba warbaahinta Soomaalida oo dhanna aadun ka wada warhaysaan in ay idinla soo wadaagtay. inta aan taas u gelin aanu fiirino bal suuqa iyo coinanka la isdhihi karo 24 saac kor ay u soo kaceen oo dadkii maal gashtay 24 saac ka hor way ku faa'iideen. waxaana kamid ah oo aanu arkaynaa Matic oo 3% cirka isku soo shareeray, Luna oo 13% Bamanda laga soo dhigay kaas maanta, Tomo Jane 3.30% ayuu cirku soo kacay, Cosmos waxaad moodaa isaguna ama Atom sida doonta handalka u qaado 2.65% inuu cirka isku soo shareeray, VJane ayaa 2.56 asna soo gengareeyay, Nasdaq Exchange tokenkeedii iyaduna halkeedii dollar ayuu soo dagaalamaya 1.44% ayuu cirka isku soo shareeray, Cardano 2.39, Byton iyo Conan waaweyn, Stars 2.8%, Enigma 2% ka dhawaayo ya kale, EOS, Basic Attention, Neo, okay, Raven, Bitcoin SV ayaa ugu dambeeyo, Energy xoga coinanka waxaad moodaa inay iska yara cagaaran yihiin oo percentage ay cirka isku soo wada shareerayaan oo aanu arki karayno. balse aan ku hormare sida aanu la socono dowladda federaalka ee Soomaaliya iyadu waxay soo saartay wareegto isla markaana ay ku mamnuucaysay dhamaan in la siiyo sharciyada ay haystaan qolooyinkani ka shaqeeya suuqani loo yaqaano forex-ka oo iyagu kuwa la dhihi karayo waxa ay yihiin qaabab kala duwan oo dowladdu iminka ay u maalgashanayso. waxmaynu meel kale iga galo sign up-ka later ayaan dhihi lahaa, better to stay this area bala refresh. waxaanu arkaynaa in wareegta dowladda federaalka ay ka soo saartay in bankiyada dhexe ama private-ka bankiga dhexe Soomaaliya oo bankiyada private-ka ku amrayo in la xiro account-nada qolooyinka ka shaqeysta forex-ka. forex-ku magaalada Muqdisho lacagaadu fara badan oo 100 milyan iyo ku dhawaad ku sii socon karaysa ayaa iminka galaysa sida aanu arkayno. lacagtaasina way halis badan tahay hadana nidaam loo helin, sababtoo ah suuqa forex-ka marka laga soo tago sheekadiisan garta xalaasha iyo xaraanta inuu yahay oo margin trading aanu ognahay 99% in ay xaraan tahay iyo 100% ayna adag tahay in qof Soomaali ah uu suuqaasi la manna sheegto ama wax la keeno. marka taas laga soo tago suuqaas forex-ka isagu naftigiisa waxaa jiro wajiyo kale oo qofku shakhsiyadiisa uu ugu qanci karo, laakiin in go-aan la qaato ah in dadka la xanibo oo la yiraahdo batatan qofkani adeeg bangi ma qaban karo. waxa u dhaantay in bangiga dhexe Soomaaliya uu yiraahdo company hebel oo forex ka shaqeeya iyo company hebel oo forex ka shaqeeya ama company hebel oo sidan ah waxaanu ku haysanaa in hay'adda sharciyadaha soo siiyay ee xarunta ganacsiga ee iyo wasaaradda ganacsiga ay soo cadeeyaan qolooyinkan qaabka ay u shaqeeyaan. ayagu ilaa iminka sheekadooda waxaad moodaa oo isha ugu godan tahay Crypto Somali TV horena aan uga dignay in sheekadooda ayagu ay tahay G4 oo qaab pyramid scheme ah ay doonayaan in dadka ay lacag uga urursadaan, laakiin waxaa jiro dad kale oo waxaasoo dhan shaqo aan ku lahayn oo bankiya private ah iyaguna isticmaala xaqna u leh in ay transactionadoodaas ay helaan. marka ma qoladaasa qoladan xun loo xanibaa mise qoladaasa qoladan kale xanibaysa? ciladu waxay ka tahay go-aankani horay waa uu usoo baxay oo wareegtadani dib ayaa qalin korka looga qoray oo dib loo soo lifaaqay oo horay waxay u ahayd mid bishii 10aad soo baxda oo sheegaysay in lagu dhiganay qaad ka tirsan oo xitaa hay'adda nabadsugidu ay weeraro ku qaaday xarumo hay'adahaasi ay lahaayeen ama qolooyinkaas forex waagaas sheeganayay oo tagnay inay dhahaan waxaanu idiin samaynaynaa forex trading ayaanu ka shaqeynaa lacagta noo dhiibto oo qofba qofku ka dambeeyo oo wax laga siinayay oo ilaa iminka sheekadoodaas ay dawaq ku jirto oo sheekadaas 80% ay u egtaa xogaha Crypto Somali TV soo gaarayana ay ba sheegayaan
in haweeney bakistani u dhalato waddanka ingiriiska ku nooli ay lacagtii faraqa ku shubatay ayna adag tahay in lacagtaas dib ay usoo noolaato sababto ah dadka waxaan ka daba shaqaynayay oo iyagu naftigooda xitaa hadday sharciga galbeed ah leeyihiin ay yara adag tahay inay xamilaan malaayiinta 80 kun 60 kun qof Soomaali ah oo aan ganacsada laysan u haysan sharci kale aan haysan dawladdu u sheegtay inuusan shaqayn waxaan iska daba wareejinayo awood uma lahaan karo in qof uu lacag u dhiibay uu yiraahdo lacagtan qofkaan u dhiibay oo su'aashu waxay maana xagee ka keentay isaysu kugu soo gashay isagana xawaaladii ku soo gashay xawaaladuna si sharci darraa markooda hor ku siisaa macquula wayara adag tahay in kiiskaas la galo lacagahan iminka bangiga dhexe isagu naftigiisu wareegtada uu ka soo saarayo 70% ma aha mid bangi marta 70% ma aha mid bangi marta dadkan sise ka shaqeeya forex-ku iyagu horta bangi wax ma ku diraan su'aasha ay taagan tahay waxa kamid ah maxaa diiday brokerro Soomaali ah inay dhisataan idinka ragiinan Soomaalida ee guryaha kireystay ee doonaya inay qaadataan oo tiraadeen war investment company ayaanu nahay maad iscadaysaan oo dhaxdaan waxaanu doonaynaa anaga in brokerro ama dulaalay noola aqoonsado suuqa maalgelisa ama company hedge fund ah inay noqotaan oo jid cad dadka kula dhaqataan ba ina guriga kireysataan aad tiraahdaan waxaanu nahay signal aan sameeynayna oo forex aan sameeynayna trading oo nin Pakistani ah ama nin Hindi ah ama nin Bangladesh ama nooc kala oo ajnabi ah lacagta aad u dhiibtaan hadhowna adiga iyo tolkaaba isku ka scam garay adigu Soomaaliga ee iminka u furtay gurigan u ijaartay hadafkaagu 99% ma aha in hanti Soomaaliyeed aad meel ku sheegto koow waxa ay taa qora maalinta jirnimo degdeg inaad adigu meel isku sheegto waana waxa idin fududeeyo xitaa xogaha qaar ay sheegayaan inay gaarteen bulletproof power ama powertaan rasaasta kirin ay gadataan waxaad ka gadateen oo qoroxa dadka aad scam gareynaysaan waxaasna waa wax laga fiican yahay waxana fiican idinku inay iscadaysaan oo soo bandhigtaan balancegiina aad soo bandhigtaan trade-ka ay sameynaysiin ma aha in la yiraahdo forex 100% waa guarantee batatambo sheeko guarantee ah forex ma dhaxtaalo forex waxa dhex yaalo leverage iyo margin trading haday dadku ku qancaan culimadu waxay ka sheegtay qofkii diido isaga ayaa xor u ah oo diinta islaamku maaha mid qofka sanka laga gelinayo ama lagu dirqinayo waxaan waa xaraan haddaad ogoshahay la ciyaar haddaadan ogoleen oo diintaada ogoshahay iyo sharafkaada xoolahaada xalaasha ah waa gooni suuqaasne muxuu yahay qaybtan waxaan jecelahay bal suuqaas iyo waxa uu yahay qaabka Soomaalidu dad kala way jiraan suuq isaga naftigiisaas isaga oo sidaas ah ayadoo dadka la isu joojooben ay hadana waxa jiro qofku xorriyad u leeyahay in uu hantidiisa ku shameyn karo transaction ama uu meel wax u diri karo laakiin hadduu bangi isticmaalay sodanka isticmaalaysa bankiyada ee iminka forex u isticmaasha ma aha kuwa G4 jaqda ah oo kale waa kuwa naftooda suuqaas ku yara dhaxdhiban oo waxay u dhaxdhiban yihiin maadaama suuqaasi bani yahay bal maalintii haday 10 bani $10 helayaan ama $20 helayaan ama $30 helayaan ama $50 oo ay ayagiiba nafta ag dhigayaan isagaas naftigiisii isagoo suuqaas caadi uu yahay dadkaas xaq ay u leeyihiin inay helaan in bankiyadu private ka wadanka laga leeyahay ay u sameeyaan wire transaction kooda ama bank transaction kooda noocay doontaa noqotay haduuba dulaalka ama brokerka ay xaq uu ka ogolaado ayaga in uu siiyo oo uu yiraahdo waan idin soo diraya transactionadiina oo lacagtiina waan idin soo diraya anigoon idin scam garayn qoladaas xaq ay u leedahay in bankiga dhexe uu go'aan degdeg gaaro anaga oo og in horay hay'adda nabadgelyadu ay u xirtay qaar ka tirsan maalintii wareegtadan la soo saarayay oo hore xarumo scammers ay wateen ilaa iminkan ay dabada ka riixaan qolooyinkan qalin furatada ee dadka u sheegtay sheekadan ah adiga lacag keen 40 maalin sug adoo miir qaba lacag noo dhiibatay heshiis kale oo jira ma leh lacagtaaduna waa daqiiqad la walba ayaa la way karaa in birri mid kale la qoro 40 kan intuu tirsanayo kii 10 maalmood ka gadaal yimid lacagtii laga qaada kan laga siiyo kaas kan kala laga siiyo oo midba midka kale midku ka dambeeyo kis laga siiyo 4 bilood 5 bilood intaysan gaarinne waxa lacagta dadkii haysto aan oo dhan boorso lagu soo rito diyaarad laga soo raaco qaabkood xitaa wararka inkastoo wixii la sheegaba wax ay ka jiraan qaarkood ay sheegaan xitaa in lacagaha dadkan imika ay aruuriyeen dhowrka hadda 100 milyan ku dhow
ay qaarkood dad ay qurbaha la taagan yihiin iyagoo boorso ku wado oo ay meelay la qabtaan laayihiin iska daa in dad loogu shaqeeye waan iska yara hadlis badnaan doontaa in lacagtaasi horta 90% ay soo noqoto laakiin bangigu uma laha xaq inuu yiraahdo qof Soomaali ah mase loo samayn karo adeeg ah inuu wax diro marka taas laga soo tago aanu aragno iyadu naftigeedu mahirgeli doonta mahirgeli doonto maalintii tani ay soo bixaysay nabasugidu waxay xireen xarumihii ay xireen dib loo furay iyadoo dib u furideedu heshiiskeeda uu kamid ahay in qofkii xarumahan imaanayo uu soo qaato kaarka dawladda hoose ee minishiibiyada ee dhalashada ama in passport Soomaali uu soo qaato taas oo iyadu dawladda naftigeedu ay dadku ku iskaam gareynayso tuugada qayb ay ka ahayd oo ay doonayso in ama qolooyinkan sameeya kaararka dhalashada ama qolooyinkan kale ee passportka Soomaaliga sameeya ay lacag helaan oo shaqo abuur qolooyinkaas ay u noqotay maalintaas ay ahayd dawladdu in wareegtadan xizigeeda ay ku taagnaato maalintaas ayna xizi lahayd wareegtadan ma aha in maanta la yiraahdo waxaa loo weerarayaa in la yiraahdo batatan baa la joojiyo transactionada dadka Soomaalida ee online ka doonayay inay wax uga shaqeystaan qofku in uu wax diido uma qasbi kartid inaad tiraahdo diintu waa ka xaaraantilmayso waxaan hadii kale waa ku dila oo asaga iyo ilaah ayaa xisaabtamayo adigu waxaad u leedahay qora inaad tiraahdo ruuxan kuma fiicna haduu diido isaga ayuu talaa laakiin xaq ayuu qofku u lahaanayaa inuu transaction sameeyo bangiguna waxa uu yahay adeege bulshada u adeego bulshadu waxa ay suuqan batata federaalku nuucay doonaan hadda ka dhigaane bad ma hor istaagi doonaan oo lacagtani 30% maba mari jirin bangi ayadu ma mari jirin lacagta forex bangiyada lacagta laga soo qaadayay baltan la soo qaaday lama qaaday ma dhihi kartaan waa bay nin hantidiis hadii salaam laga soo qaado hadii laga soo qaado kambaniyada waaweyn isgaarsiinta ama hadii laga soo qaado bangiga dhexe horta dollar batatan ba ma qabto oo lacagtan dollar ay ku socotaa dollar in laba group soo kala issue garaysato oo qolooyinkan ama yaa saad ku issue garayso oo soo sheegtay inay saad dollar u dhigmo halkii saad iyo qolooyinkan kale oo EVC iyaguna u dhigmo $1 oo salaami groupkooda ah meesha doonaan ha qabtaan groubyadaas ayaga naftigooda scam ah bangigu haduu doonayo inuu dadka hantidooda ilaaliyo lacagtii shilinka Soomaaliga ahayd ee sharafka iyo ciziga lahayd meelaha ku soo sheego maahane laba nin oo Soomaaliya lacag wadan dhan ay soo issue garaysteen adeero naga daayay baasha la isku ciyaarina awla dadkii scam garayseen bangiyadan aad leedihiin waxa joojino waa dawladda dhabta ay wadanka ka jirta ayaka ah iyaga ayaana dadka hore u scam garay oo u dhacay hadii intii yar ee dadku haysteen ay cash ka haydna ay dhahan na soo siiya waxaad moodaa sheekadu beel kalena inay ka furmi doonto oo bad kale ay noqon doonto la isugu imaan doono scamnimadii naftigeedii sababta hadda hadii la yiraahdo nimankan Soomaalidu iyagu naftigooda xarfaan kala waayo oo dollar ay rabaan ma rabaan EVC lacag la tirinaya ay rabaan oo dollar la yaqaan ah magaalada hadii Muqdisho aanu ku soo noolaa jirnay dadkuna way yaqaaniin la isweydiiyay maanta 50,000 oo saas loo tirinayane waxay noqonaysaa 10 jeer in la galo halka marka la yiraahdo salaamaan ku dira ku sii wareeji ka wareejina ay noqonaysaa iska adeeg raganina dadka igaraal noqda dadka ay la shaqeystaan waa dad iyaguna xarfaan kala ah oo nuucyo kala qaabab kala u bartaan mar walba waxay u baahnaataa inta lacagtaas lacag cash ay noqoto waana waxa celayska ugu badan imika keeni karaya ee aad moodo in bangigu uu iska soo degdego oo xitaa wasaaradii ganacsiga ee dadkan sharciyada soo siisay uu ka soo hormaro wasaaraduna hadda imika ay taagantaa wax bangiga sheegay waxaan ka ognaa male bal ayaga dib ha isugu noqdaan oo xaalka bal waxa dhahaan wareegtadan heshiisa laga gaaray hore oo nimankii xitaa loo xiray xarumahoodii dib loo furay ayagu naftigoodu scammers ha noqdaan laakiin xarumahoodii dib ayaa loo furo waxa loogu furo shuruud ah passport ninkii wata iyo ninkii wata maxaa la yiraahdaa kaarka dawladda hoose ayaad ogolaanaysiin janna calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh marka xaaladu sidaas waaye waana wax dhaca inta badan inta muuqaal ku socdo like dhaha asxaab fara badan si ay u gaarto isla markaana aan u kala falanqeyno kala duwanaanshaha waxaan jecelahay bal markan in aan u yara noqono kala duwanaanshaha lacagahani oo aanu aragno bal waxa aanu isdhihi karayno waa ku kala duwanaanayaan marka aanu fiirino suuqa waxaan jecelahay bal iminka waxaanu joognaa asaga waa bitcoin suuqiisa balse marka kale ee aanu dhahno euro iyo dollar oo kale bal aanu aragno waxaynu aragno euro dollar and forex trade waxaad arki doontaan iminka in graafku isbedeli doono oo lacagta euroga oo dollar dominancegiisu uu yahay bal waxa lagu kala sarifayo
waxaan arkaynaa in baniyadaas ay down tahay, balse marka sidan uu qofka Soomaaliga u eego igaraal noqda waxaan idinka hor wareejinayaa wareegtada. marka qofka sida qofka Soomaaliga ah uu noocan u eego suuqa waxa uu arkayaa wuxuu leeyahay niyo suuqan iyo hadda shaashadan kale ee aan idinla wadaagayo waa iyana Bitcoin chart oo Bitcoin graph ah isla markaana aad trading view aydun ka fiiri kartaan way isu yara ekaanayaan maxaa ciladaho jiro. ciladina ma jirto meeshan aan ahayn oo qora in ay kala duwanaanayaan oo qora wax yar oo qora waxa ay ku kala duwan yihiin ay tahay 4 shay oo kala duwan. subxaana janal maxaa caawa cusub laakiin ku saarayna aad ay dumaadsan tahay asxaabtaadana la sii wadaag. caawa waxa cusub waxa waay bankigii dhexe ee Soomaaliya oo aad moodo sheeka aan xaniya aan la lahayn inuu korayo oo lacag uusan isaguba soo issue gareyn taagan hal xanibo oo lacagtii EVC-ga company soo issue gareeyo dollarna aan ayaga ay maamula bangiyadan leysina ayuu siiyay, laakiin nidaamka lagu kala shaqeeyo hay'adda ganacsiga ayaa xaq u leh in nimankan hadda tuugada ah scammers-ka ayaguba hadday doonaan ha noqdaan dadka lacagta ka furanaya dadku ayaga xaq u leh inay wax oo waato iska ilaaliyaan ama aysan iska ilaalin, laakiin haddana aad moodo in bangigu uu soo hormarayo oo wixii laga sugayo uu ka soo hormarayo. marka waanu arki doonaa bal iyana waxa ay noqoto. marka Bitcoin ahaan aan u fiirino waxaanu arki doonaa inay kala duwan yihiin oo la is dhihi karayo haddaanu eegno Bitcoin exchange-ga Bitfinex Bitcoin iyo dollar. Bitfinex oo aan laga soo saarayo oo graafkeedu uu graaf weyn oo hore yahay exchange-gaas waxaanu arkaynaa in ay isku yara eg yihiin labadani graaf oo imika aydan arkaysaan. candlestick-yada inta badan inta taqaana suuqa forex-ku suuqan janis ay u leedahay in candlestick-yadani ay fahmi karayaan isla markaana ay la jaan qaadi karayaan, laakiin ujeedku muxuu yahay iyo kala duwanaashahooda. kala duwanaanshaha ayaan jecelahay bal inta aanan graafka iyo howlihiisa noo gelin. suuqani forex-ka la yiraahdo waa suuqa sarifka lacagaha guud ee dunida ama lacagaha dawladaha dunida. lacago aad u fara badan oo dunida oo kala duwan ayaana lagu sarifaa. waana suuq ay dhaxmarto la dhihi karayo lacag ka badan 5 trilyan 4 trilyan 3 trilyan oo dollarka Mareykanka ayaa birday dhaxmara oo lacaga kala duwan. lacagaasna intooda badan dominancy-gooda dunidu waxa uu yahay oo qora waa dollar. marka laga soo tago taas waxa ay leeyihiin wax la yiraahdo saraa u kicid iyo hoos u degid kala duwan, waxaana ay la shaqeeyaan lacagahaasi qaab siyaasadeedka kala duwan ee wadamadaasi iyo xaaladahooda kala duwan, kambaniyadooda iyo faa'iidooyinkooda iyo qasaarooyinka wadamadaasi soo gaara iyo siyaasadahooda kala duwanba sarifka lacagahoodaas waa ay saameysaa. taas waxay keentaa marka maadaama hadduu Trump jayno ku dhago lacagta yuanku inay beerta galayso, hadduu Jinping uu madaxweynaha China uu ku dhago Trump oo kalena laga yaabo in yuantu haddana ay soo yara kabsato, hadduu Brexit groupkooda ay soo kacaan ayaguna laga yaabo geliga sterling inuu wax yar kaco, hadduu Trump kasoo daba qayliyo ku tufanay laga yaabo inay haddana hoos waxaas ay isla warwareejiyaan. laakiin lacagtaasi waxa ay leedahay wax la yiraahdo sicir bararkeeda oo ah in infinite supply ay leedahay aan xad lahayn. dawlad waliba intii ay doonto ay soo daabacan karto. waxay leedahay xad aan limit lahayn oo ah in dawlad waliba intii ay doonto soo daabacan karto. ay kamid tahay reeboogi imika Fedka wadanka Mareykanku ay soo daabacayeen lacag ku dhow asbuuci aanu soo dhaafnay 5 bilyan oo dollarka Mareykanka, iyadoo bishii 8 sanadkan ay soo daabacayeen lacag ku dhow 3.5 iyana bilyan oo dollarka Mareykanka, taasoo sicir barar ku ah lacagta dollarka. qof walba oo dunidan ku nool dollar haystana maanta lacagtaasi ay saameyn doonto suuqa marka ay timaado oo reebowga iyo bankiyadu marka ay soo qaataan waxay keeni doonaan forex, waxayna imaan doontaa iyana in sida suuqa circulation ay ugu soo biirto adigana sida tan aad jeebka ku haysato ama qaanada kugu jirto ay sicir bararkeedaas uu wax ka soo taabto ama qiimo dhaceeda. suuqyadaasi maalin waliba tartankaas ayay ku jiraan. bangiga dhexe ee wadamadaas ayaa isu ilaaliya bolisiga dhaqaale, laakiin haddana waxa uu ka fakaraa
tan forexiska naftigooda sarifkoodan caalamiga ah in uusan baabi'in oo waa lacaga qarameed intay doonaan ay soo daabacan karaan tartanka aada la geli karto in qolo lacag soo daabacanayso iyo suuq bankiyo ay laverageka iyo margin call kunadoodu uu daqiiqad yahay aad la tartami karayso adiga ayaa xor u ah lacagahaasi laakiin waxay leeyihiin volatilitygaas laysdhihi karo 1% ama 0.5 areadooda in maalmaha qaar aad heli karta halka bitcoin iyo crypto ay kala duwan tahay oo muuqaalo hore crypto Somali TV uga baxaan idin kula wadaagay qaabka volatilityga ama hoos iyo kor u kaca bitcoin-ku mararka qaar 3 waagiisii hore 4 ilaa 5 ilaa 15 meelahaas marmar 15 uu gaari jiray laakiin hadda waxaas way soo jarmeen waxa uu dhex noqnoqdaa 4 ilaa iyo 3 meelaha ayuu imaada oo aad mudo asbuucyadan xataa inay kamid ahayd asbuucyadii ugu wanaagsanay dhinaca supply-ga marka taas laga tago crypto maxay leedahay waay suuqan kale isaguna liquidationkiisu iyo lacagihiisaas tirada badan hay'adahaas bankiyada qolooyinkaas oo dhan hedge fundadii iyo wixii oo dhan na way dhex ordaan laakiin suuqan kale ee cryptadu isagu muxuu leeyahay crypto wuxuu leeyahay waxaad u imaanaya bitcoin waxa uu haystaa 21 milyan bangiya sheegtay xataa juudka maajuud haduu soo istaago dambe oo dib usoo daabici doono ma jiro waa code qoran oo public ah qof walba uu verify gareyn karo xaqiijin karo minorskuna ay ku qanacsan yihiin wuxuuna leeyahay dumaandigiisaas weydiinta iyo supply iyo dumaandigiisaas kala duwan oo ah intii coinka rabtay iyo intii coinka haysaba suuqa go-aan inay wada gaaraan oo suuqaas uu sidaas u dhisnaado waxaa kale oo uu leeyahay leverage-kiisan kala duwan dhinaca forexiska marka loo fiiriyo oo kale oo xataa waxyaabaha la yaabka ugu badan waxaa kamid ah in laba dollar oo kale leverage inaa ku gashaa tirado 100x ayaan sameynaya oo ay ka taa oo qora $2 inay dhumayso mooyaane aadan $100 soo heli doonin laakiin iyo transactionadiisaas tirada badan oo ah brokerkaada markaa lacagta kasoo qaadaysid wuxuu kaa rabaa interest bankiga markaa kusoo joogto interest ay noqone oo waxay noqonay transaction fee kusoo baxay bankiyada isu soo dhiidhiibayo dhan transaction fee ayaa kaaga soo wada bixi doona iyo kii aad kasoo qaaday dulaalka ahayo dhan laakiin crypto waxaad u baahan tahay oo qura waxaadi marka aad soo dirsanayso in minor fee-gooda aad bixiso ayada oo raqiis ah ay lacagtaadi waqti hore ay ku timaado adiguna aad noqoto bankigii oo lugaynayo oo luga leh marka aad noqoto qof bankiya oo isagii banki ah oo lugaynayo waxaad dareemi karaysaa ciziga aad ku dhex yeelan karayso suuqaasi oo ah in aan cidina maanta inay soo baxdo ama bankiga dhexe Soomaaliya inuu soo baxa uu ku leeyahay hebel waxa ma diri karo company hebelna waxa ma sameey karo waxa waaye go-aanka anaga hana la weydiiyo marka taas lagu dhaho waad la yaabaysaa oo madaxa ayaa kugu xanuunayo waxaana dhahay maxay tahay xuquuqdii iyo dadnimadii iyo qofnimadii aan lahaa oo cidina kama hor istaagi karayso waxa uu leeyahay in aan dhamaan oo la soo daabacan karo forex iyo crypto oo leh in limit ah oo qof walba ilaashan karo crypto waxaa tahay banki socdo hantidaadan cid inta aad dunida ku nooshaa hor istaagi doonto male haddii aad ka ilaashato tuugada hackerska ah oo 12 eray ee furayaasha ama 24 eray ee furayaasha ee crypto walidada ay ku siinayaan inaad haysato iyo in aadan hantidaada qof hoos fariisanayn oo dulaal aadan hoos fariisanayn oo maxaa dhacay dulaalka waa exchange-yada oo kale dulaalka crypto aano exchange-yada crypto iyo dulaaleyda maxaa la yiraahdaa aan araahdo forex waa kala labo exchange-yada crypto waxa ay u agdhow yihiin oo ay ka agdhow yihiin kana quwad sareeyaan dulaalka maxaa la yiraahdaa forex dulaalka forex ama brokerka waxa uu hoos fariista oo ku hoos nool yahay waa banki oo bankigaas ayaa soo siiya ogolaansho uu leasing ka soo qaata idinka iyo hay'ado kale oo sharci oo fara badan ayuu ka soo qaataa qolooyinkaas oo dhan wax walba waxay u dhaxmaraan banki laakiin exchange-yada crypto inta ayaga ay u dhigma maanta qaarkoodna waa ayba noqdeen inay noqdaan banki company banki ayuu ku socdaan exchange-yada crypto sababta lacagtaas intaas leeg ayaa dhex taalo ayaga ayaa inta exchange-ga lacagtu taalo ka mas'uul ah waxayna qaataan oo qoro qofka wax raba iyo qofka wato iska gadaya in meel ay isugu keenaan inaad tiraado anigu waxaan haystaa 10,000 waxaan ku rabaa 2,000 nin kalena uu yiraahdo anigu waxaan haystaa 30,000 laakiin 30,000 2,000 aan ku rabaa wixii naas la isu celceliyo ama $1 iyo bar ayaa shaygan ku rabaa ninkaana uu yiraahdo $1 iyo waxaan ku rabaa 29 uu isu kiin raadiyo ilaa labadiina mid
uu senti ka fuqo kabacdina uu sukiin keeno. markuu sukiin keeno orderkiinu fiil garaynaya nin walba walletka accountkaas uu ku dhex leeyahay ayayna waxoodii u kala tagayaan isagana percentagekiisaas uu ka qaadana. haddaad kasoo dirsato computerkaada ama telefonkaada walletka ku taala aad usoo dirsatane adiga ayaa ka mas-uula. inta exchange-ga taale duceyso ilaahu aan la hagarayn sababtoo ah waa malab jid yaalana qofi kama tago waana xarumo 24 saac sida bangiyada loo weeraro halka brokeradu ay joogaan oo qura in ay joogaan pagekaas aad sign up garayseen isaguna applicationada kala duwan suuqa la falgalaya oo isagu naftigiisu uu idinkaga xawaaro sareeyo iyo in aan la isiin crypto nooca doonto ahaa ma lagu siin doono crypto awood la sheegto ama sheekadan in lagu yiraahdo 10,000 haddaad keensato awood waxaad u leedahay inaad trade ka gasho oo lagu yiraahdo quwad lagu siinayo laakiin quwad ma jirto meesha lacagtan 100,000 uu ku deyminayo wuxuu rabo oo qora in 10kaada uu ku xalaalayso. crypto haddaad 1 milyan la timaado iyo haddaad $1 la timaado $1 order ayaad fiil garayn kartaa. haddaa $1 wadato haddaa 1 milyan wadatana 1 milyan order u dhigma ayaad fiil garayn kartaa. beni iyo senti aadan adigu lahayn ma dhihi karti ha layga gado ama waa gadaya. taas oo ah shayga ugu xalaalsan dunida waxay diinteenuna ay noo tilmaantay kamid tahay qofku inuu gado waxa uu hantida u ah gacanta uu ku hayo. kala duwanaanshahaas ayay leedahay iyo xorriyadaas dhaqaale oo kala duwan qaabab kala duwan iyo nidaamyo kala duwan ayaana loo maraa. haddii aad doonayso helida bitcoin badad kale iyo howlo kale ayay noqone. haddii aad doonayso suuqa forex adiga ayaa u dawaqayo balse dadka iminka forex isticmaala crypto doonaya inay soo galaan waxaan dheelahay waxay ku kala duwan yihiin supply-ga oo limit hantidaadii oo aad xor u tahay oo qole iyo cid ka hor istaagi doonta mustaqbalka noocay doonta ha noqotay aysan jirin iyo in garaafkan haddaad baratay oo dadka aan la dhahayo luuqyada ku jira la dhahayo signal idiin soo diray signal biri laga yaabo anigu haddaan signal hadda dhiso aan signalkaas ku dhiso oo dharadeyda korkooda idiin soo diray idinku oo dharadeedii oo dhan aad fiil garaysaan waan idin scam gareeyay ma ogidin laakiin idinku marka signal iyada la gadanayo iyagu naftigoodu 90% waa iska scam way adag tahay sababtoo waxa ku fiican graafka inaad adigu lafahaad u fahanto kadibna aad ka tashato oo ilaah aad ku tawagasho suuqa isla markaana waqti iyo cilmi aad siisaan. crypto cid leh male qof aad kaga masuultaa male qof ku xanibi kara male wareegto bangi dhexe ka soo baxday iyo qola dhexe ka soo baxdana ma jirto oo ka horseedi karto balse waxaan idin dhihi lahaa nimayahow scammerska iska ilaaliya qolooyinka dawladuna ayaga isu noqon doono oo waad arki doontaan wareegtadan sidii bishii 10aad 2019 waa sanadkani aysan u shaqeyn ay u shaqeyn doontaa 90%. laakiin waxaa jiro qalin furato scammers oo dadka u mala awaalaya oo taagan lacag loo dhiibta dadkaasna 90% waxaan dhiilaa haddaydan iscadaynina qolooyinkiinan magaalada muqdisho iyo gobolada wadanka ka furtay xarumaha taagan forex trading nahay harun iyo laysin aad haysataan exchange-yada caalamiga aad heshiiska kula jirto dulaaleyda caalamiga heshiiska aydun kula jirtaan sharciyadahoodii nidaamyadoodii aydun dadka la wadaagaynin aad taagantiin heshiiska qofka uu nala galay waa inuu qof meer qaba ahaada oo lacagtiisa soo meer qaba noo dhiibtay garantiina uusan jirin iyo goob dambe oo la isu raacan karo. waxaas waan ka xumahay in dadka waxa ay saxiixayaan iyaguna aysan akhrin karaynin oo ay dhibaato tahay oo leeyahay warqadan saxiix laakiin qofka ay u fiican tahay waxa uu saxiixayo inuu iska akhriyo oo nuxurkooda fahmo iyo mira dhacooda. sababta marka lagu yiraahdo adigoo meer qaba ayaa lacag ii dhiibtay saxiix waa ku dhibaano meer qabo laakiin heshiis ma aha heshiis meer qab iyo ma noqday heshiis waxa ay noqonayo war lacagtaydan maxaa u raasumaala xageen u doontaa haday wax dhumaan halista caynkee ayaan geli karaa laakiin aniga afku waxa iiga sheegtay inay tiri intaasoo ku keenso 500 ama 600 ama 1000 bishi u soo xaadir aniga suuqan aan 1000 uga soo xaadirayo xagee ka soo shaqeynay adiga faa'iido rabtaa askarta haysato oo gangistirnimada ku bilowda faa'iido ka rabaan oo lacag si lahayd dulaalka aad lacagtu dhiibi doonto faa'iido si lahayd bangiga lacag uu qaadan doona la dirayo dulaalka gaarsiin doona dulaalka soo diri doona lacag waaya hadii ay noqoto xataa war 10 transaction ka badana meeshan dhex taale sidee ku dhacday in 10 qoro faa'iido waxay ka wada reebteen adna aad garantiga siiso banooniga laga dhaafo ciyaarta ayaan dhihi lahaa
dadkana in la iskaam gareeyo iyadu naftigeedu shaqo abuur maaha. mar labaad iyo meer saddexaad in qof Soomaaliya aad iskaam garayso oo aad hantidiisa dhacdo shaqo abuur ma aha. way fiican tahay in shaqo la abuuro laakiin shaqo ma loo abuuro in qof walaalka ah hantidiisa aad dhacdo ee aad tiraahdo dawladda iyo dadku waxay ka soo horjeedaan shaqo abuur. culimadu shaqo abuur kama soo horjeedaan. dawladdu heshiisa bidi kula gashay shaqo abuurkiinan oo ma garan karo wareegtada dib waxa uu soo cusboonaysiiyay oo gocashada keenay laakiin heshiisyadeedii la gashay iyaduma waxbay iskaam garaynayso oo dhacayday oo qasab waxa ahaa qofka asoon meel u socon asoon meel u safray in la yiraahdo passport dalba ama kaarka deganaanshaha kan ID-ga dawladda hoose ka bacdi lacagta haydiin dhiibo. laakiin idinkina lacagta la idiin dhiibay garantigeedii ma haysaan. dadka u sheega maxay idinku qabanaysaan lacagtan xaggee u wadaan caddeeya maxaad qabanaysiin maxaad doonaysiin. maaha in bangigu uu idinku qaldamay ha idinku qaldamay idinku masaxan tihiin idinku masaxan tihiin meelaa wax wadaan ma leh. gurigaad ijaarateen waxaad taagan tihiin gurigan waan ka guuray beri maxamuuda iskale ama cabdullahi iskale cabdullahi wuxuu leeyahay beri ninkii gurigan ku jira ma aqaan meeluu tagay igala hera. waxaas war noqon maysa hadhow dadka madaxa isu gelina. waxaa kaa badan oo qoran lacagta inaad soo aruursatay tole aad fadhiisato Nairobi ama aad fadhiisato Kigali yaa kusoo qabanaya hadaa Kigali tagto qofna kusoo qaban mayso. dadko idinkuna dadka lacagta u dhiibanaysaan fiiriya suuqa shaqo waa leeyahay meelo fara badan oo la maalgashado way jiraan. xarafka investment iyo maalgashiguna uu sakin dawaqmin waxa la maalgashado iyo hadafyada ujeed ayay lahaadaan. maha qoraan maxamuuda shalay lacag soo qaatay oo jaamaca lacag soo qaatay jaamaca iyo maxamuud lacagta yaa laga siiyay. waxaa laga yaabaa faarax iyo faa'iiso shalay kasii horeeyay oo qoray in lacagtooda la soo siiyay adigana aad doonaysaa hadda inaad qorto faa'iisa laga siinaa lacagtaadna. marka waxa ma sheegaysaa in lacagta kan kii laga qaado kan la siiyay kan kii laga sii qaado oo la siiyo waa jana xaqiiqdi waa arrin aad loogu qosla feenta maaha oo ana dhaqanka tuugada scam risk ay ku hayaan magaalada Muqdisho ana arki doonaa kullayba sida ay noqon doonto balse dad fara badan ayaa moodaa in aysan weli fahmin dhaqankan ah wariyaan la scam garaynay bal umada ha loo turo oo ha laga xishoodo oo ha la yiraahdo bal xal ha loo keeno wax natiijo oo ilaahay ka socdana mal suuqa waa uu kala duwan yahay dhaqamadaas iyo nidaamyadan ay u kala duwan yahay. waxaan idin dhihi lahay forex oo aniga iyo Crypto Somali TV iyo culimo fara badan oo dhaqaalaha dunida yaqaano oo aan ahayn oo qora inay idinku dhigtaan cilmada Soomaalida dadka waaweyn iyo xarumo kale oo ka waaweyn ayaa ku cadeeyay in suuqaasi uu xaraan yahay. xaqa adiga ayaa iskale ku dhawaaqistiisa oo ah in wax diintu ku ogashaa raacdo laakiin bangigu in uu yiraahdo transaction bangiyada hala xanibo in wax laga fiican yahay mana aha wareegto jidkeedii sharciga ahayd iyana soo martay. waxaa dumiyay markeedii hore bishii 10aad ayaana iminka dumin doona oo waxa waaye oo qora heshiis kale ayaa dhici doono wax kale oo ka weyn ma dhici doono. qolooyinka la dagaalama musuqmaasuqa oo ayagiba aad moodo in musuqmaasuqa bood ay yihiin ana aragna bal meeshayna la qabtaan. balse crypto waxaad haysataa ayaad la dagaalami doontaa bitcoin noocaad doontaan iyo cryptona waxa waaye waad la soo ciyaari kartaan idinka oo xaraan iyo nidaam iyo iska daba wareeg iyo bangiga la joojiyay iyo lacag laga xanibay aadan kala kulmin. waxay u timid oo qorana xorriyad dhaqaale qofkii inay siiso nooca laala noocay doontaan noqoto in bangi wax ka xanibi jiray in meelo kale lagu xanibi jiray inaad mustaqbalka dhaqaale xumidan iyo baaba'an aan mar walba ka falanqeyno dunida Crypto Somali TV ay ka hadasho arrimaha dhaqaalaha iyada naftigooda aan qodobo ka soo qaadanaa idin kula wadaagayay iyo waxa soo dhan haddii doonayso inaad kaga badbaado waad imaan kartaa waana kugu soo dhaweynaynaa Crypto Somali TV inaad ka mid noqoto waxa laala wixii su'aalaha ee ku saabsan teknolojiyadan crypto iyo blockchain ba waad soo weydiin kartaan waxaana imaan kartaan dhinaca Telegramka oo idinkuna asxaab fara badan ay joogaan oo aad idin heli kartaan wixii su'aalaha kale oo aan ka sii tagay. suuqa guud ee crypto mafia isku aruursa jana xaqiiqdii meesha mafia iyo ka badan isku aruursatay oo marka ma fiicno in laysu qofka xumaantiisa la soo bandhigo balse waxaa jira dad aad fara badan oo xun oo magaalada Muqdisho aad moodo in xumaantoodii ay meel kale la qabteen hore OneCoin iyo OneLife iyo maxaa la yiraahdaa FX Trade iyo Hebelow Mining Hebelow Gini iyo balaayaan qaat bilaa ka tagneen ixtaa naaxiya kuwa kale Soomaaliya xataa waa jira inay Soomaaliyiin ilaaha garanay laakiin raad ayay ku leeyihiin sababtoo ah
kaarka EVC-ga ayduna isticmaashaan kambaniga EVC-ga naftigiisa isagaa laga rabaa tolo bixiya ee Hormuud in kambaniga naaxiye lambarka uu ku isticmaalo EVC-ga ay xiraan batatanba oo lambarkaasi lacag fara badan oo dhalinyaro Soomaaliyeed ayuu dhacay waxaana loo baahan yahay dhalinyaradaas uu dhacay in ay lambarka geeyaan xarunta Hormuud oo ay dhahaan lambarkan dhowr qof ayuu dhacay boqolaal ay kor u sii dhaafayaan kumanaan ayaynu ku sii socdaan dadka naaxiyo uu ku dhacayo systemka EVC-ga haddii qoladan heblo reer forex ay keeneen in cash loo keeno oo bangiyadii dollarka ay ka soo qaadaan qolana waxay taagantaa EVC-ga naftigiisa noo soo dira iyagoo ku dhahaya in email noogu soo dir telefoon ku sheegayna telefonkaas lacagta ku diray qof kula hadlayo male lacagta la soo shubisadi dhowr biloodna ka bacdi wax dambaad arki doontid male oo aan ahayn oo qora in 15 3 bilood laga daadsado EVC ayaana mas'uul ka ah in simkaarada ay bixiso ay ku bixiso sharciyad haday ku bixisana simkaaradaas dadka sharciyadooda ay ku qoran tahay xabsiga dhaxal la geeyo oo ay arkaan cadaaladda dadka masaakiinta hantidooda ay dhaceen laga soo saaro waan arki doonaa howdka yaa lagu fogaanayaan dhihi lahaa meesha scammers fara badan ayaa wareegaya forex waxaan idin dhihi lahaa xaqiiqdii qof Soomaali ah wax ku dhaafaya male waxa ku dhaanto oo qora adigoo jab bitcoin ama hal xabo bitcoin iska gato sanad gudaheed lacagtaadii ama 40% ka faa'iido ama 30% ka faa'iido adigoo oo walwal iyo iska daba wareegelin nooca doontana hantidaas cryptada ku ah meesha doonto dunida la mari karo qof alaalo qofkii ka ogolna uu ka qaadan karo 10 saac habeenimo ha noqoto ama hal saac aruurnimo ha noqoto ama 10 fiidnimo ha noqoto xilligay doonto waqtigay doonto adiga ayaa bangi lugaynaya ah in bangiga dhexe uu go'aan ka soo saarayo maaha adiga ayaa go'aan ka saarayo dhahayo ama Cabdisalaan ana u diray transaction kan ama ana diiday adiga ayaa dhahayo waxa markaas ayaa dareemi karaysaa ciziga uu leeyahay in aad go'aan gaarto iyo inaadan gaarin market cap guud waxa noogu jirta 192 bilyan oo dollarka Mareykanka Bitcoin dominance 68.6% ay cirka isku yara sharartay waxaana dareemeynaa in 7302.20 senti oo dollarka Mareykanka la kala siisanayo ever 87% ayuuna Bitcoin ahaan down yahay Ethereum ayaa moodaa imika inuu madaxa soo yara qaadayo oo 130.20 uu doonayo in uu soo galo haddaanu eegno coinanka la isdhigi karo waa soo yara qaaliyoobeen waxaan arkaynaa EOS maanta inuu hogaaminayo oo 1.76% cirka isku soo shareeray inaad adigoo EOS 10kaada ku gataa dhanta maanta xaqiiqdii lacag aad ku faa'iido la yaqaano tartiib adoo bani iyo qamaar iyo margin call iyo margin trading iyo waxba ka walwalin Bitcoin gado EOS gado ku sarrifo US dollar ka dhigo tartiibkaada jawi degan laakiin dadku waxay rabaan oo qoro G4 jag waxna laga siiyaa balaya baraaniga warheeda maxaana laga siiyaa in dadka hantideena af Soomaali ku qataan maxaa turufatorayaasha noo geeyo ma iska dhaaftaan turufatorayaashan iyo beelooyaashan aan ilaahay rasuulkiisa aqoon jana waa soo weydiin karaysaa waxa la wixii ku saabsan teknolojiyadan ama arrimahan dadku scammerska ma aqaan waxa uu geeyo waxa la yaabana oo ka kari la bulshada Soomaaliyeed nuucay doontaa noqoto war scammers iska dhaafo war lacag qof aadan u talin adiga malihid faraha ka qaad scammer faraha ka qaad maya qolo waxay ku keeneen website kan taataabasho see lacag loogu helaa ma lagu helo lacag meela la taataabana qola darad waxay la soo wadaagaysiinayna USD Bitcoin awaato dollarki US dollarka ahaya la mining garayna see mining loogu sameeyna see loo qadana dollar ii sheeg federaalka dhexe wadanka Mareykanku muxuu mas'uul ka yahay ayaga soo daabaca lacagte waxay keeneen website lacag laga daabaco iska daayada oo ila isku ciyaaro laga fiicay barka qaar waxa fiican qofku inuu meerkiisa dajiyo su'aashan isweydiyo loo sheegayo jawaabta intuu soo bixin inuu fahmo waxa uu yiraahdo dollar la qoda oo dollar dowladda Mareykanka soo issue gareynaysi say ku dhacday mise waxay noqotay dollarka oo EVC ama EVC ayaga la weydiina meesha ka keeneen lacagtan ay maalin walba dhahan EVC waa laakiin waxaan jirin dad weydiiyay ayadana bangiga dhaxaasa laga rabay nimankan intuu ku dhagay scammerska ayaga naftigooda kuwaas inuu ku dhago yiraahdo war balance la soo cadeeyo baashu meel bay beesha aan la garanayn wax baso wax beelbeelada jada beeta wax baso wax beelbeelada laakiin dadka muqdisho wax baso xataa ma aha ayagu waxay wadaan xaqiiqdii dhagalacaanay wadaan sabta wax baso waxay ku fiican tahay war waxaan aabadsanaysa u soo shaqeynay ma la weydiiyay bis ninka war forex oo ku dhaawaa geena lacagte tubtee u marsiinay forex-ka naftigiisa
lacagta kaasha iga qaaday xaqiiq waa inaysan salaama tagin hadday u badato waxaa laga yaabaa inay xawaalo Soomaaliya tagto oo nin kale uu qurba ka qaado haye jidkay ku baxdo marka lacag xawaalad ku baxdo forex ma tigin xagee ku baxdo marka adiga isweydiis ciwaanadani waxa lagu sheegaysa adigu ma aragto ma soo bandhigan maxaa u diiday ayagu inay warbaahinta u soo bandhigaan accountadooda iyo laysanadooda iyo sharciyadooda qurbaha ay ka haystaan war dulaaleyda ay hoos fadhiyaan aawe ayagu dulaaleyda ay la shaqaystaan aawe ma sheegaan oo dhan war anaga dulaal hebel xarun hebel magaalo hebel address hebel guri hebel meeshaas degan sharci bangigaas haysto maxkamadaas ay nidaam soo siisay jidkaas leh raasumaal iyo wax leh ma dhihi karaan ma rabaan inay dhahaan idinkuna ma rabtiin inaad dadku wax weydiisaan jiif oo jaqdeedii ka taa ku qanacsantiin tusaale inaad ku qanacsantiin janna waxaan soo xasuustay sheeko kanaalkan dhinaca telegramka asxaabta qaarkood qisooyin aad u yaab badan marka qaar la isweydiiyaa mid kamid ah asxaabteyda wuxuu dhahay xiliyo hore ayay ahayd wuxuu maalgashaday nin hindiya qiso ayay ahayd qisada aan kusoo qaatay in dadku xataa ay jecel yihiin in waxaan marka qaar ay tahay in qofku isaga xataa uu ku qanacsan yahay oo taagan yahay meesha waa halis badan tahay laakiin intaysa duminaan ka faa'iida war inta aysa duminaan ka faa'iida oo adiga dhahaye cabdisalaana 3 bil sheekadana 3 bil soo socota lacala 3 bil waxay soo socotay in groupki soo abaabulay ay wax siisiinay heerka Muqdisho si kasta baa loogu heer Muqdisho si kasta loogu soo shaqatay war Muqdisho ma aqaa waxba ilaah magaaladaas ilaahay qeyrka isheeda furo wallahi ba ku dhaartay beenta inaysan hayna ku dhaay nooc walba loogu soo shaqo tagay nooc walba haddii qolo dawlad ay ku dhacayso hadday qolo ku dhacayso inay yihiin hay-ado bangi iyo hay-ado kale xarumo sirdoon ay ku yaaliin oo wax ay qabtaan iyo meesha u socdaan alla aqoon qolo ilmaha xataa xadayso qolo dadka baarka kala baxayso cusbitaallo dadka in kaliya laga baxay lagu leeyahay qofkii meeyda oo ima baba qaarad kala waa wallahi ba ku dhaartay dhibka Muqdisho haysta in dunida meelaha qaar uusan haysan dadka ku noolna bataatanbo horta ciziga islaamku ilaahay alxamdulillah ilaah maadis waaye waxaad moodaa in imaamka ama qalbiga dadka magaalada Muqdisho ku nool uu yahay qalbi aad u weyn xaqiiqdii oo qofkoodii u jeedaa in dib loo geystay dhahayaan ilaaha qadaray laakiin ay keeni karto su'aalo weydiintaas haday soo badan lahayd in laga yaabi lahay in waxoogaa dadku ay yara miir keeni lahaayeen waxaad arkay qof la dilayo qof cusbitaal aad uga tagto oo bukaan ah ee aad u soo noqonaysaa soo geeriyoodo lagu duuduubo lagu karfaray marka aad furtin aad arkayso xubnihiisa jirka inay kala maqayeen lagu leeyahay qofka waa ku duugayna afara kale ay noqonaysaa markaas inaan ka hadlo laakiin dhibaatooyin aad u fara badan jiro laakiin sheekada lacagta aniga waxa igu dar waxa waa qoraan in qof aan la dhicin laakiin dadku waa diiday marka qisadii aan jeclaa inaan sheego janno nik saaxiibkay ahay wuxuu sameeyay sheekada waa loo sheegay dad fara badan waxay dhan anaa ka faa'iiday waayo xusdaaniyo jaamac iyo maxamuud iyo raagi iyo faa'iido waa ka soo faa'iidane bal adiguna tag balniyo kisto uu ya Allah asaga ku soo gashay ee la yiri iga qabso mar dambana nabadkaygan iyo waxigan iyo nabadgeli bar ku shaqayso ayuu inuu qaado oo wuxuu u geeyo ninkii cid ogeyd male ma foorkiisu ka shaqay jiray backgroundka qaybta dambe ee qofkan muxuu ahaa jiray intuu ku soo koray yaa aslidiisa yaqaan muxuu soo bartay cilmigan ma leeyahay shahaadada wasta shaqaynka oo qaba jiray hadda muxuu qabtaa dhan ma jirto ninka uu shaqeeyaa mu shaqeeyaa lacag ma ka faa'iidaha saaxiibkii lacagta qaado waa geeyay ya Allah inuu ku soo gasho oo dhan nabadgeli lacagta intaan qaado meesha doonta kala bax mar dambe oo qeynayaan ku arag wuu geeyay markii uu geeyay dhowr maalmood kadib ninkii waa la waayay war maxaa dhacay groupkii ku xiranta ah noqdo marka waxa waaye asiga waxa lacagta ka qaado waxay ahayd saaxiibadiisoo dhan anaga lacag war lacagta aad ka heshaan idinku saaxiibadeeyo ninkan horta lacagta idinku soo idinku siiyay say isaga ku soo gashay muxuu ka shaqeeyay ma soo aragtay ishaadu ma qabatay la sheegay dhalka bax adu ishaadu waxay qabatay qof lacag la soo siiyay waa run laakiin lacagta la soo siiyay xagee ka timid lacagta qofka la soo siiyay qofkaanse lacagta suu ku soo shaqeeyay naftigeedu ma foorkiisu ku soo shaqeeyay foorkiiska naftigiisu waa internet soo maaha ana soo qaadanayo waxaan soo gadanaa sim card oo ay tolo hormuud ah internet oo soo fura $10 حتى حفيزكي صدق انترنت لهين انا سيم كارغي ugu wifi gareynayo hafuro aan aragna bal shaqaha qabto maan horta hal maan idin la joogo idinku shaqeeyaa arkubal
maaha inaa ii furto cawaatole sida hadda uu pagekaygu u furayo oo kale trading view waxaan rabaa qora order ayadoo la fil garaynaya hanti 80 milyan laydin dhiibay xataa 5 milyan oo kamid order ay ku furantaa keen ma haysid 10 kun xataa order ay ku furantaa ma haysid waxaysaa oo qora shakadan ah aan isla wada meereysano waa laga fiicay in isla wada meereysto damac ka tir wallahi shakada janno waa damac ka tir marka waxa dhilaa asxaabta howdka ayaa lagu fogaan suuqa iyo suuqan forex-ka walkiiba 9 anagu waxaan naqaanaa waxaarana idinka ayaa xor ah waxaad u fahmi karaysaan laakiin waxa uu leeyahay jidad iyo nidaamyo kale crypto waa jiha kale duni kale oo dhaqaalaha xor qofka ka dhigta hantidiisana aan codna hor istaagi karin broker ama dulaal aad u hor fariisanaysan male waxay ku kala duwan yihiin waxa kamid ah haddaan idin soo xasuusiyo limit supply-ga ama xadka inta crypto la heli doono mustaqbalka coin walba ku xaniban inta lacag dollar la heli doono oo ah maalinta ugu horeysa federaalku go-aan gaaraan reboga in lacag lagu soo daro ama stock ay lacag kusoo daraan ama ay lacag kala keenaan xad ayaan lahayn la daabacayo bangiya aad waaweyn oo tartankaas ku jiro iyo dad xaq u leh inay lacag soo daabacaan inaad la tartamaysid ama haddii kun lagaa qaaday ama 10 kun lagaa qaaday bal hadduu goofkaadu la dagaalami karo dollarka oo fedka ama dowladda federaalka ee gudiga federaalka waddanka Mareykanku ay soo daabacayaan aanu aragno bal waxa inta bilyan ay soo daabici karaan hadduu goofkaadu soo daabici karo adiga ay arki doona xaqiiqda markaas oo ogaan doona iyo wax siyaasad faraha ku leh oo maalin boqol ay sii degayso dhaqaalaha dunida uu sii degayo waxa dhaantay in bitcoin maanta la geliyo 80 milyan xaqiiqdii oo waxayna xaalaheed lacag mustaqbal qaranka Soomaaliya oo ah iska dhaaf in ay noqoto qof ama group kale maraan dheeraan ayaan filaya insha Allah wiilisa madawa asxaabtan waxaan dhiraa brave browser idinku isticmaala si kanaalka aad Crypto Somali TV aad tibka u soo siisaan oo aad muuqaalkan imika aad taabto oo isagoo ah browser aad wanaagsan amaan fara badan leh warbixino kala duwan ayaana ka heli karaysaan waxay kala su'aalaha waad la soo wadaagi kartaan ku saabsan kala duwanaanshaha forex iyo crypto iyo waxay ku kala duwan yihiin iyo wareegtadu maxay ka bedeli doontaa oo iyana aanu aragtideena ka dhiibanayna isla markaana idinkuna aydun ka dhalgi karaysaan waa saaxiibkiin siidka oo dhamaantiin idin dhahaya inta aad maasantiin dhamaantiin asxaabta inta muuqaalkan mid lamid ah aan ku kulmi doonane waa saaxiibkiin siidka oo idin dhahaya hawdka crypto yaa lagu fogaan sidaas iyo nabadino noonu kala taliyo amana Allah ballanteenu boqol sano midkii jiray buxusha aga buux sameeyey garmadooba aan baqin dhalintooy isbiirso ballanteenu